bismillaah salaamu calaykum soo dhawaada ummadda Soomaaliyeed meel kastoo dunida dacaladeeda ka joogtaan gacmo furan ku soo dhawaada walaalahayga qaaliga ah haddaan nagu cusub tahay subscribe noo saar asxaabteeda qaaliga ah maanta waxaan idin wadaa barnaamijkeena waa barnaamij aad u faa'iido badan barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay daawada loo yaqaan Zantac ama Ranitidine waan filayaa daawadan dad badan inay yaqaanaan ayna isticmaalayeen muddo badan daawadan waxaa loo isticmaalaa gaaska ay dad badan u qaataan Ranitidine ama Zantac labadaas ayaa loo yaqaanaa asxaabteeda qaaliga ah daawadan in muddo ay waxa ku socotay baaritaankii ayaa soo gabagaboobay baaritaankaas wuxuu ku socday shaki laga qabay daawada Zantac ama Ranitidine inay keento kansarka waxaa la ogaaday oo la xaqiijiyay oo jawaab kama dambeys la soo saaray inay daawadan keento kansarka ayna tahay mid xaqiiq ah sababtoo ah maadadan waxaa ku jirta maado loo yaqaano NDMA maadadaas waxay la xiriirtaa xanuunka kansarka sidaas daraadeed Zantac ama Ranitidine waa in la joojiyaa sida ugu dhaqsiyaha badan dawlado badan ayaa ka mamnuucay kuwa kalena borosayska ay ugu jirtaa maadaama ay tahay Soomaalida dadka ugu badan ee isticmaala daawooyinkan khaasatan Zantac ama Ranitidine please la wadaag asxaabtaada walaalaha u faa'iideey u share garay waxaa jira dad muddo isticmaalay waxay halis ugu jiraan kansar caafimaad iyo cudurba ilaaha hay laakiin waxaana la dhahay dadaala wala tulqu bi aydikum ila tahluka gacmihiina ha isku halaagina waxaa jira dad badan oo ogeen u share garay walaalaha meel kasta oo ugu share gareyn kartid ugu share garay intaad afka uga sheegi kartid afka uga sheeg maadada la yiraahdo daawada la yiraahdo Zantac ama Ranitidine waxay sababtaa kansarka waxaa ku jirta maado kansarka keenta ee loo yaqaano NDMA please ha laga digtoonaado ha la iska joojiyo gaaska waxaa jira daawooyin kale oo loo isticmaalo oo safe ah waxaa ka mid ah omeprazole lansoprazole way badan yihiin adi marka insha Allah dadka waaweyn waxa ugu fiican inay qaataan 40 mg ee ugu fiican sababtoo ay 20 mg qof weyn wax uma tarayso khaasatan hadduu xanuunka zaid u hayo marka insha Allah waxaa jira daawooyin badan loo isticmaalo gaaska waxaa ka mid omeprazole waxaa ka mid lansoprazole aad ay u badan yihiin daawooyinka gaaska laakiin Ranitidine ama Zantac waa hal daawo ayada labadaas magac wadato Zantac ama Ranitidine hala joojiyo adduunka waa laga joojiyay Soomaaliya hala joojiyo kansarka ay keentaa walaalaha u faa'iiday waxa wanaagsan wax khayr leh ama wax faa'iido leh markuu ku soo gaaro inaadan adiga heesanin oo aad la wadaagto ummadda muslimiinta oo la wadaagto ummadda Soomaaliyeed oo la wadaagto ummadda aad isku afka tihiin insha Allah share gareeya laga yaabo qof maanta isticmaali jiray ama qorshe ugu jirto inuu isticmaalo ama isticmaali jirayba ama hadda soo gadan rabay inaad ka badbaadiso ilaaha wax badbaadiyo laakiin inaad processka u noqoto insha Allah marka asxaabteeda qaaliga arintaas ayaan rabay inaan idin la wadaago hala gudbiyo arintan waa arin hadda soo baxday kininka la yiraahdo Ranitidine ama Zantac waxaa jiray shaki ayaa laga qabay baaritaan ayaa in muddo ku socday baaritaankaas ayaa soo gabagaboobay waana la xaqiijiyay inay sababta kansarka waa ku mahadsantihiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh